in badan oo kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka waxa ay hadal hayaan arrimaha la xiriira go'aan uu dhawaan soo saaray madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump kuwaas oo la xiriira qaxootiga sharciyada socdaalka iyo arrimo badan oo muujinaya kala qoqobnaan bulsho waxa uu dhawaan joojiyay in ka badan 7 dal oo dhamaantood ah dalal Islaam ah inaysan dadkoodu soo gali karin gudaha Mareykanka iyadoo isla xilligaasina Soomaaliya lagu celiyay in ka badan 9 ruux oo Soomaali ah haddaba arrimahaas iyo kuwa badan ayaan wax ka weydiiyay qaar kamid ah hogaamiyayaasha jaaliyada hay'adaha qaabilsan qaxootiga iyo barayaasha jaamacadda Ohio haddaba barnaamijyarahan aanu ku eegayna arrimahaasi ka bogasho wacan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiinba dadkan meesha naga daawanaya Soomaalida waxaan aad ugu mahadnaqayaa Somali National TV oo na soo booqday xafiiskayga nagu soo booqday oo raba inay wax ka ogaadaan amarka cusub ee ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka kuna saabsan dadka qaxootiga wadankan imaanaya waxaan rabaa inaan u sheego dadka Soomaalida runtii hadda maanta waxaan ka qayb galay shir muhiim ah oo looga hadlayay arrimahaas oo dadku ayna ka qayb galeen hay'adaha dadka keena ee qaxootiga Church World Service-ka Jewish Family Services iyo dawladda Mareykanka hay'adaha localka ah oo degmooyinka iyaga iyo gobolka iyaga dad waxa kale oo ka soo qayb galay iskuulada Columbus Public Schoolska waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo daneeya dhamaantoodna runtii waxay ka fakarayeen sidii wax looga qaban lahaa ama maxaa la yiraahdaa dadka loola xiriirin lahaa loo wargelin lahaa madaxweynaha Mareykanka ee cusub Donald Trump ayaa wuxuu soo rogay mamnuucis uu ku soo rogay dadka qaxootiga ah ee caalamka ka imanaya meeshii doonaan ha ka yimaadeen 4 bilood ee soo socota wuxuu amray in wax qaxooti aan dalka Mareykanka la keenin wuxuu kaloo amray in xilligaas wixii ka dambeeya 7 dal ay si gaar ah dadkooda in loogu hayo oo wuxuu leeyahay dadkaasi wadamadaas ka yimaada sharci ma leh warqado ma leh qaab lagu tixraaca ma leh wadamadoodana argagixisa ka jirta sida awgood qof kasta oo kamid ah dalalkaas oo qaxootiga imanaya waa in laga fiirsado qaabkii keenitaankooda ahayd oo la mamnuuco ilaa ay qaab loo dejinayo loo sameeyo dalalkaas waxay kala yihiin Soomaaliya, Iran, Yemen, Liibiya, Suudaan, Iraq intaas yihiin iyo Syria wadamada ayaga ah waxa weeye wadamo uu leeyahay argagixisa joogta marka barnaamijka qaxootiga dhanba sida ku joojinaya wuxuu kaloo bilaabay oo uu ka shaqeynayaa barnaamijkii dib u celinta iyo tarxiilka dadka ku jooga dalkan sharci darrada ama dadka ayagoo sharci aan buuxin haysta dambiyada galay oo qofka asagoo ama deganaansho haysta ama qaxootinimo dal ku jooga hadduu dambi galo oo ama xabsi la geeyo ama la xukumo in la tarxiilo ka shaqeynaya xataa wuxuu sii baahinayaa oo uu hadda ku doodayaa waxyaabo awal aan la isu qabsan jirin tusaale ahaan waxyaabaha traffic oo kale ama waxyaabaha qolyaha cayrta kale eedaha oo ay dadku soo jeediyaan qofkii aan sharci fiican lahayn haddii lagu qabsado in dalka laga celinayo hadda ayuu ku goodiyaya waxa kale arrinkan aad u saameynaya dadka halkan jooga oo aan wali noqon Mareykanka oo sharciga aan qaadan haddii uu gala dambi waxa weeye qofkaasi degdeg baa loo celinaya wadankiisa loogu celinaya hadduu horey dambi ugu jiray sidoo kale waxa weeyaan waa sharcigu waa qabanaya haddii qofkaas isaga ah uu waxado ama wax tuuga ah lagu qabto oo dawladda hantideeda uu dhaco ama been uu ka sheego sidoo kale sharcigu waa qabanaya waa la celinaya haddii uu business leeyahay oo wax isdaba mariyo sharcigu waa qabanaya oo waa la celinaya haddii qofku uu maxaa la yiraahdaa naagtiisa ama xaaskiisa ama uu la diriro domestic violence ay wax la yiraahdo loo yaqaan ay timaado sharcigu waa qabanaya qofku inuu citizen noqdo maahan sidoo kale qofku haddii asagoo haysta green card hataa uu safro sharcigu waa qabanaya hadduusan qofku uusan ahayn macnaheedu waxa weeye qofka Soomaaliga ah wadankan wuxuu ka mid yahay inuusan soo gali karin ilaa iyo maxaa la yiraahdaa amar dambe sida ka muuqata wadankan waxaa jiray kale oo arinta kale oo uu Trump keenay hadda ah waxaa magaalooyinka qaar ka jiray waxa la dhaho sanctuary city oo magaalooyin loo ogol yahay in dadka soo galootiga joogaan ayagoon sharci lahayn oo dawladda federaalka aan loo sheegin haddii la qabto ayagoo ama baabuur wada ama ayagoo meel kale tagay haddii la qabto awal lama tarxiili jirin hadda wuxuu leeyahay qof aan sharci lahayn haddii la qabto qofkii qabtay ama qofkii la kulmay oo police ah ama qofkii dawladdu shaqeeyo la kulmay waxa waajib ku ah qolyihii tarxiil lahaa in hore ka gaarsiiso qofka loo qabto oo loo xiro oo loo tarxiilo marka arrimo badan oo dhibaatooyin runtii soo kordhiyay madaxweynahan
wuxuuna ku ololeeyay oo kaambeynkiisuba ku salaysnaa qaxootiga iyo soo galootiga inuu ka hortagayo ama derbi ha ka dhiso Mexico wadada ee xuduudeeda ama kuwa jooga ha celiyo ama kuwa soo socda ha reebee arrintaas buu wuxuu ka dhigay arrin amniga Mareykanka wax looga qabanayo u sawiray inay tahay dhibaato fara badan bay marka runtii ku tahay dadka Soomaalida ah oo ama halkan sharciyada waaweyn aan ku lahayn ama qaxootinimada inay ku galaan doonayay ama sida sharci darrada inta ku yimaada sharciga inay halkan ka raadsadaan ku tala jiray intaba dhibaatay ku tahay. This is Community Refugee and Immigration Services. I'm Angie Plummer. halkani waa xarunta lagu caawiyo qaxootiga iyo dadka soo galootiga magacaygu waa Angel K Balmer oo ah gudoomiyaha hay'adda Chris waxaan maanta ka hadlaynaa amar ka soo baxay madaxweyne Donald Trump inkastoo aanan haynin macluumaad dheeri ah haddana waxaan filayaa in uu saameyn ballaaran ku yeelan doono mideynta qoysaska kala maqan kuwaas oo kala ah responsorka iyo waliba fiisooyinka waanu idinla wadaagi doonaa wixii kale ee ka soo kordha. We'll certainly get information out as soon as we have the details on the executive order, but please know it could halt the immigration of those from fadlan ogow go'aanka wuxuu hakin karaa socdaalka dadka qaxootiga ee asalkoodu yahay Soomaalida waxaan ogahay in aan taageero ka heli doono bulshada sida aan ogahay in badan ayaa ka soo horjeeda amarkan waa in aanu la xiriirno xubnihii aanu dooranay una sheegnaa in aan taageersanahay qaxootiga iyo isu keenida qoysaska kala maqan arrintani kama turjumaysa qiimaheena and that this does not represent our values. Maraykan waxaad moodaa waqtigan hawsh iyada ahayd waxay gashay amar cusub soo baxay oo la leeyahay dadka kaliya oo wadankan imaan kara oo loo yeeri karo waxa weeyaan dadka diimaha haysta oo ku nool wadam oo diimaha haysta laga badan yahay oo ku nool wadamada maxaa la yiraahdaa ku nool macnaheedu waxa weeyaan waxa priority la siinayaa toddobada wadan oo muslimiinta ah dadka ku nool oo kristaanka ah maxaa la yiraahdaa marka waxaan idinka codsanayaa oo tala idinku siinaya oo baarlamaanka Soomaaliya tala ku siinaya maanta runtii qof iga xoogaalsan Soomaali waa yar iyo Mareykan ku nool in aad madax wanaagsan wadankiina u doorataan inaad ummadiina ku maamushaan sida ugu wanaagsan in dadka Soomaaliyeed loo sheego dhulkooda la jeclaysiyo wadaniyad lagu abuuro midnimo in dadka Soomaaliyeed la heshiisiyo in la garto in wadan ka fiican lama arko wadan walba bad buu leeyahay dhul buu leeyahay beer buu leeyahay in la helo hoggaan fiican oo dadka u tilmaama danahooda hoggaan fiican oo garta midnimada Soomaaliyeed qiimaha ay leedahay hoggaan fiican oo tusa in banaanka lagu ordaya aysan qiimo lahayn Soomaalida go'aamadan uu gaaray madaxweyne Trump runtii saameyn aad u far badan bay ku yeelan doontaa kuwa dalka dibadiisa jira ee doonaya inay yimaadaan dhibaatay ku tahay kuwa halkan joogay sharci darrada ku joogay dhibaatay ku tahay oo watan qaar ba la tarxiilay qaar kalena in la tarxiilo baa lagu tala jiraa arinta ugu weyn ee dhibaatada ah runtii waxa weeye dadka qaxootinimada ku yimid ama green card ka haysto oo Mareykanka jooga hadday dalka ka safraan waxa laga yaabaa inuu u diido Trump inay soo noqdaan sida awgeed garyaqaanadu waxay dadka u sheegayaan aan green card ka leh ama aan lahayn baasaboorka weyn sharciyo yar inta qaataan inaysan dalka ka bixin hadday ka baxaan xuduudda ama Canada ha tageen ama Soomaaliya ha u safreen ama meel kale ha tageen qofku hadduu Soomaali yahay oo dhalashadiisa wali ay Soomaali tahay oo uusan dhalasho Mareykan qaadan waxaa suuragal ah in loo diido dalka Mareykanka inuu ku soo noqdo marka arrimo badan oo dhibaatooyin ah ay geysan doonaan talooyinkan iyo go'aamadan uu soo jeediyay Donald Trump sida daraadeed waxaan dadka Soomaalida u sheegaynaa xaalku tii hore waa soo dhaafay guriyihiina dhista wada noolaada heshiiya walaalooba wadankan muddo fara badan baanu ku noolayn madaxweynayaal badan baa iyagu xukumaanu soo joognay annagu dawladdan wadankan waa wadan Mareykan waana wadan weyn wadanka Mareykanku wadan weyn waana wadan runtii dadka jooga oo dhan ay yihiin dad meel kale ka yimid oo dhamaantood uusan ahayn wadan maxaa la yiraahdaa ay qolo gooni u leedahay hase yeeshee siyaasadda madaxweynuhu awood buu u leeyahay inuu markaas sidoo doono wax u maamulo waxaa marka muuqata in dadka immigrants ka leeyahay ama muhaajiriinta la yiraahdo uu xaalku ku adag yahay hadda wadankan dadka ugu daran ay yihiin dadka ka imaanaya wadamada toddobada ah oo la magacaabay iyo wadamada dariska nala ah sida Mexico kale oo ay darbi dheer la dhisayo waxa inta soo raacda oo runtii aad muhiim ah inaan ogaano
imaatinka sharcigaanu inaanu siday sahalka annaga noogu tahay dadka Soomaalida aan lagu qabto sababtu waxa weeyaan in badan oo inaga mid ah ma ay fiiriyaan had iyo jeer sharciga ma fiiriyaan waxayna keeni kartaa khatar bay u keeni kartaa caruuraheena iyo reeraheena sidaa daraadeed waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad ka feejignaataan inaad haba yaraatee waxa loo yaqaan fraudka ama la yiraahdo wax isdabamarinta inaad ka fogaataan dad ganacsi ku leedahay Mareykanka haddaad ku leedahay maxaa la dhihi jiray dad xiriir la leedahay haddii aad tahay dadka welfare ka qaata haddii aad tahay dadka iskuulada dhigta haddaad tahay wax walba in aad is ilaaliso haddii aad tahay immigrant oo aad I-94 haysato ama green card haysato inaad is ilaaliso waxaa ka mid ah waxyaabaha runtii ah dhibaatooyinka dad kala maqan baa jiro Soomaaliya waalidkii xagga jiro ilmihii inta joogaan ama ilmihii xagga jiraan waalidkii halkaan joogo dadkaas isu imaanshahoodii waxay galaysaa caqabad baa soo waajahday oo dhibaato ay ku tahay dad badan oo Soomaaliya meelo badan ku rafaadsan baa jiro qaxooti ah ama Kenya ha ahaato ama Yemen ha ahaato ama Syria ha ahaato ama meelayo kale ay ka imaan lahaayeen ha ahaato dad wax marmaray oo hawlahoodii u socdeen dadkaas oo dhan caqabad inay gali doontaa laga baqayaa marka runtii dhibaato fara badan oo Soomaalidu ama Mareykan ha joogto ama meelahaas kale ha joogtay ayay ku tahay Soomaalida Mareykan joogtay oo sharciga weyn lahayn ba ha ugu sii darnaadeen waxaan aad iyo aad ugu runtii ugu mahadnaqaynaa culimada Soomaaliyeed oo aan wada shirnay oo ka hadalay arrinkan meeshan Columbus oo aanu si faahfaahsan uga hadalay in mataqaana ay muhiim tahay in la wada jiro lana wada noolaado waxa countiga iyaga iyo city iyaga la abaabulay shirkaas oo ay isugu yimaadeen dad aad u fara badan oo dadka u dooda dad fara badan oo laga hadlayay iskuulada oo laga hadlayay waxyaalaha dhici kara iyo sidii loo gaashaaman lahaa taas oo runtii waxa dad aad u wanaagsan oo wax kala garanaya ay yimaadeen oo countigu noo timid citygu noo timid sidoo kale dad ay yimaadeen wax garad ah annaguna aanu ka qayb galnay loogana hadlayay waxyaalaha suurtagalka iyo waxyaalaha suurtagal ahayn ninna dawladda kama hor iman karo dawladda sharciga ayaa soo saartay madaxweyne sharciga ayaa soo saaray annagu dad Mareykan baanu nahay laakiin waxaan idinka codsanaynaa maadaama arrinkan uu yahay arrin aan sahlanayn Soomaalidu dhul bay leedahay dhulkiina ha ka cararinina dhulkiina dhista heshiiya oo dhexdiina ka heshiiya meeshan waa meeshii loo soo carari jiray adduunka dhan uu soo carari jiray hadduu ah ama Yurub ha ka yimaado ama Afrika ha ka yimaado ama Ruushka ka yimaado Mareykan baa loo soo carari jiray mamnuucista dadka qaxootiga ah ee Mareykan imanaya mar uu ka hadlayay madaxweynaha Trump wuxuu sheegay in 4 bilood markay dhamaato oo xanibaada ah dadka ugu horeeya oo ahmiyada la siin doono oo Mareykanku u tixgelin doono inuu soo qaado ay yihiin dadka Kirishtaanka ah ama Masiixiyiinta ee wadamada Carabta jooga sida Ciraaq iyo Suuriya iyo wadamadaas dadka uu sheegay in lagu dhibaateeyo oo laga tirada badan yahay dadkaas inuu maaragtay soo horqaadi doono marka waxay u eg tahay siyaasadiisa arrimaha dibadda inay ku salaysan tahay waxyaabo ay ka mid yihiin arrimaha diinta arrimaha midabka oo kale tusaale ahaan oo dadka cadaanka ah imaanshahooda ma aha wuxuu diidayo asaga xaaskiisu sidaan ognahay waa naag dalka soo gashay hooyadii sidoo kale dalka waa timid ma ahayn qof ku dhalatay cadaan inay yimaadaan ma aha wuxuu diidayo waa Mexicaanka iyo Soomaalida iyo Muslimka iyo dadka aan wadamadaas kale ka imanaya imaanshahooda way wuxuu diidan yahay midda kale dhaqaalaha hantida ay leeyihiin wadamadu ayaga laftooda u kala doorbidaya tusaale ahaan halka uu Soomaaliya iyo Suudaan iyo ka beegsaday wadamada taagta daran wadamada muslimka oo xoog leh sida Turkiga sida Saudi Arabia wadamadaas oo kale Indonesia oo adduunka ugu muslim badan muusan beegsanin sababtoo ah ama waa wadamo dawlado fiican leh ama waa wadamo dhaqaale leh oo Sacuudiga oo kale lacag aad u fara badan buu gashadaa dalka Mareykanka asaga laftiisa wadamada Carabta qaybo kamid ah hanti fara badan ay wax uga jiraan marka wuxuu fiirinayaa hanti wuxuu fiirinayaa midab wuxuu fiirinayaa diin waxyaabahaas oo dhan asagoo eegayo tixgelinaya ayuu dadkii qaar beegsanaya in dadku ka shaqaysan karaan wax walbaba sida daraadeed dadka soo tahriibaya oo badaha ku soo dhacaya waxaan leeyahay jooga meeshan hadda xaalkeedu waxa weeyaan intii wax noqonayaan oo dawladda Mareykanku ay go'aan kala soo saarayso yaan badda lagu dhamaanin Soomaalidu had iyo jeer wax ma maqasho waxay yiraahdaan waa soo taabanaynaa ha soo taabanina waa iyadoo dabahba waad arkaysaan sida daraadeed waxaan ku dhiirigelinaynaa madaxda Soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen
ama dowlad gobol ha noqoto ama mid qaran ha noqoto ama xildhibaan ha noqoto in dadka la dhiirigeliyo oo lagu dhiirigeliyo la yiraahdo Soomaaliyay dhulkan adinka iska leh Mareykankii la aadi jiray waa dhamaatay waqtigeedii nin walbana noloshiisii iyo gurigiisii buu ku noolaanayaa una baahan yahay waan arki jiray kuma inaan noolaan jirin banaanka waaga horeeto nin walba gurigiisa iyo wuxuu haysto cuni jiray ilaahay buuna aaminsanaan jiray sida daraadeed naftiina aamina ilaahay aamina dalkiina aamina heshiiya nin walba ninka dariska kula la heshii nin walba ninka saaxiibka kula heshii nin walba ninka kale oo walaalkaaga qadari si ajnabiga markaad aragtaan waad u qosashaan adinku isu qosla dad qofna wax idin ma dheero qofka bini aadamka waa siman waxaan kaloo idin leeyahay madaxweyne fiican doorta oo wadanka hogaamiya oo sharaf leh oo qabkii Soomaaliyeed iyo wanaagii Soomaaliyeed soo celiya waxa loo cararaya waxa weeye hogaan baa la leeyahay qiimo badan ma dhaliilayo hadda kuwa jooga laakiin waxaan leeyahay inta kuwa ka dheereeya haddaad heli kartaan doorta waliba baarlamaanka Soomaaliyeed baan ku dhiirigelinayaa inaad maxaalku waa adag yahay oo heeliyo ummadda Soomaaliyeed waxa jira in la celiyay dhalinyaro badan oo Soomaaliya rag badan oo Soomaali in la celiyay oo xuduudaha laga celiyay Soomaaliyana la geeyay oo kulligiin wada aragteen kuwa badan oo kale baa xabsiyada ku jira iyaguna way imaanayaan way soo socdaan sida daraadeed dadka dhalinyarada ah waxaan ku guubaabinayaa anigoo aan nin Soomaaliyeed in inaan dhaqaalaha aad haysataan oo aad maraakiibta ku raacaysaan oo diyaaradaha ku raacaysaan ku samaysta business kaariyoona gata kabihiina baalasha dhismihiina guryihiina dhista laamiyadiina xaaqa maqaayadihiina ka shaqaysta dhulkii aad adinku lahaydeen jooga meeshan cidii timaada waa la celinayaa way laabanaysaa waxayna ku laabanaysaa meesha ka timid sida daraadeed iyaan waalidiinta la dhibin iyaan dariska la dhibin iyaan qaraabada iyo xididka la dhibin nin walbaaba ha jooga meesha uu joogo hal la dago ninkii raranow dag kii meel u socdo garo dhul baa alla ku siiyo dhulka ka shaqayso waxaan kaloo soo raacinayaa nimanka dhalinyarada oo Soomaaliyeed oo had iyo jeer yiraahda maxaa la yiraahdaa ama han noqdeen ama isqarxinaya ama kuwa wax qarxinayo waxa weeyaan Soomaalidu hub ma samaysato Soomaalidu lacag badan ma haysato haddii la idinku shaqaysanayana balaayada idinku shaqaysanaysa la hadlo hanugu shaqaysanina dhahaya Soomaalinima loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed ha wada hadlo hana wada noolaado taasaan leeyahay waxaan kaloo ku dhiirigelinayaa nimanka dawlad goboleedyada xukuma oo madaxweynayaasha sheeganayo waxaad maanta haysato berita haysan maysid berita god baad galaysaa maanta se waxbaad haysataa ummadda Soomaaliyeed yaan la qaybinin midnimadooda iyo wadajirkooda ha laga shaqeeyo talana ha loo raadiyo dawlad goboleed waa dawlad qabiileed qabiilla waa noo shaqeyn waayay 26 sanadood baanu dagaalamaynaa oo hore iyo gadaal baanu dhaqaaq weyn oo waxbarasho weyn oo dhaqaale weyn oo magac weyn oo gabdhaha quraha badnaa ay noqdeen hilfay leeyihiin oo dadka iyagu wuxuu ku xariisan yahay xiriyo qaxooti oo kuwii xamar joogay maalin walba waa la qarxinayaa oo ninkii shilan arkaaba wuxuu qowracayaan sida daraadeed waxaan ka codsanaynaa haybadiina soo ceshada midnimadiina soo ceshada wadajirkeena iyo walaalnimadeena soo ceshano intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijyadii daawadayaal anigoo deeqasoona ayaa idin soo gudbinaya tan iyo intaanu ku kulmi doono barnaamij midkan la mid ah waxaan idin leeyahay isma seegno